maalin maalmaha ka mida waxaa jiray nin aad hanti badan u lahaa oo beero qurux badan iyo deegaan fiican ku lahaa meel tuulo ah. maalin maalmaha ka mida ayuu iridkiisa soo istaagay isagoo ku qaylinaya, ma garanaysaa ninka ugu lacagta badan ugu taajirsan tuuladan waa aniga? miyaydnaan ogeyn inaan ahay taajirka tuuladan? ninka hantida haysta tuulada jooga waa aniga. laakiin markii uu hadalka jeedinayay wuxuu arkay ninkii uga shaqaynayay beerta oo hoostiisa la fadhiya safareet yar oo dhulka dhigay oo ay u saaran tahay cad yar oo markaa rooti ah iyo malmalaato yar. markaas buu ninkii wuxuu ku yidhi, miyaadan imaqlayn inaan ku qaylinayo ninka ugu taajirsan tuuladan inaan aniga ahay? ninkii baa yidhi, aniga waxaan ku mashquulsanaa inaan ilaahay u mahad celiyo. markaasuu yidhi, maxaad ilaahay ugu mahad celinaysaa? markaas buu yidhi, waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa arrin muhiima oo uu ilaahay isiiyey. markaas buu ku yidhi, maxay tahay arrintaas? markaasuu yidhi, rootigan yar iyo malmalaatadan caloosha ayay ii buuxin doonaan, kadibna sariir yar buu alle iigu talagalay baan seexan doonaa. guri yar oo saqafkiisu aanu roobka iyo qoraxdu ii soo daynna waan ku hoyan doonaa. marka aad baan alle ugu mahad celinayaa. laakiin waxaan doonayaa inaan kaaga sheekeeyo arrin aan xalay ku riyooday. markaan jiiftay baan xalay waxaan ku riyooday anigoo samada sare la ii qaaday oo jannadu ay markaasi agtayda tahay. markaas baa waxaan maqlay iyadoo lagu sheekaysanayo, ninka ugu taajirsan tuulada hebel waa uu dhiman doonaa caawa. ninkii wuu soo laabtay, markaasuu kursigiisii ku fadhiistay taajirka ahaa. wuxuu ka walwalsanaa waxa kan ma riyo caadi ahba mise waa wax kale oo ilaahay uu qofkan wax ku tusayo. walwalkiisii intuu socday ayaa waxaa xanuun uu ku soo booday ninkii beerta ka shaqaynayay ee miskiinka ahaa. kadibna waxaa u yimid dhakhtarkii. wuxuu uga warramay riyadii uu xalay arkay. dhakhtarkii wuu qoslay, markaasuu ku yidhi, wuu caafimaad qabaa ninka tuulada ugu lacagta badan ee waxba ha walwalin. xoogaa markii la joogay ninkii taajirka ahaa iridda ayaa loo soo garaacay. waxaa loo sheegay ninkii uga shaqaynayay beerta inuu xalay dhintay. ninkii taajirka ahaa wuu yaabay. markaasuu wuxuu yidhi, allaylehe, ninka la sheegayay inuu ugu taajirsan yahay tuulada waa ninkii miskiinka ahaa. talow muxuu ku taajiray? waxaan u malaynayaa wuxuu ahaa nin aad alla ugu xiran oo ka baqa. markaas ayuu soo xasuustay xadiidkii nebiga. وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ninkii taajirka ahaa wuxuu bilaabay inuu dadkii magaalada joogay sadaqa badan siiyo. wakhtigiisa inta badanna wuxuu ku dhammaystay inuu masaajidka ku jiro, qur-aanna uu akhriyo. wuxuu garowsaday hantida iyo taajirnimadu adduunka inaanay ahayn lacag iyo wax la mida, balse ay tahay in qofku uu alla ka cabsado, acmaal wanaagsanna uu samaysto. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.